بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. waxaan ka hadlaynaa ahmiyadda uu leeyahay magac fiican in loo bixiyo ubadka marka uu dhasho iyo si islaamka arintaas yani u dhiirigelinayo. Magacu waa astaan ka turjumaysa qofka waalidka ubadka markay magac u bixinayaan waxaa la rabaa inay u dooraan magac wanaagsan. magacaas wanaagsan oo laba arrimoodba looga dan leeyahay. waa midda koobaad magacaasi inuu noqdo magac ku dhex jirka bulshada uu ku dhex jiro, hadhow aan u keenaynin wax ama lagu caayo ama shakhsiyadiisa lagu yareeyo, oo magac dadku ay ka didayaan ama ay necbaysanayaan inaan loo bixinin. hadday saas oo kale dhacdana waa laga bedeli jiray berigii hore. haddii dadka magacyo xun casur jaahiligii ay baxsadeen, islaamku inuu saafigareeyo akhlaaqda wanaagsan, magacyada fiican inuu dadka u bixiyo ayaa hadaf u ah. saas daraadeed waxaa jira magacyo la bedelay, sida maalan qofka maalan xarbi oo kale loo bixiyo, in xarbiga laga bedelo maxay si una dagaal una u noqonin oo magac fudud loo bixiyo. waxaa kaloo ku jira arrin la yiraahdo tafaa'ul, ama se qofkan magaca loo bixinayo in dabeecadiisa uu magacu uu yeelan doono ama uu islahaan doono. saas daraadeed magac adag loo bixiyo inay dabeecadiisa adkaato ayaa dhici karta. haddii magac fiican oo khayr tusinaya ama diilo fiican tilmaamaya loo bixiyana ilmihii sidaas inuu noqdo ayay u badan tahay. waxaan tusaale soo qaadan karnaa markii nabiga sal lla alay wasalam uu aaday cimrada sanadkii ahaa xudaybiya ama sulxul xudaybiya, heshiiskaas u dhacayay oo isagoo u socday inuu cimraysto, laakiin ay u diideen inuu magaalada soo galo dadkii la dhihi jiray kufaaru quraysh. asxaabtana aad arrintaas uga adkaatay inay iska noqdaan ayagoo aan cumradii ay soo niyeysteen aan gudanin, ilaa yani sayidina cumar oo kale uu ka yiraahdo rasuulka ilaahay ow ma halkan aan ka noqonaynaa inaan soo cimraysanayno oo masaajidka aan gelayno nooma aadan sheegin, oo uu ku yiri waan kuu sheegay laakiin ma waqti ayaan kuu qabtay on ku yiri xilligaas ayay arrintu dhacaysaa. arrintaasi marka ay yani jiq isku noqotay oo asxaabtuna inay galaan ay jeclaayeen mako, kufaaru qurayshna u diidanayeen. markii dambe in la wada hadlo ayaa soo baxday. xagga quraysh waxaa ka soo baxay marka oo yimid oo arrintaasi inuu kala hadlo asxaabta ay noqotay ninkii la dhihi jiray Sahal. markii Sahal ninka magacaas leh uu soo baxay, nabi sal lla slam wuu tafaa'ulay, wuu ku farxay, wuxuu yidhi arrintu way sahlanaan doontaa, isagoo oo ka qaadanaya ninka hawshaasi galaya magaca uu wato oo ah magaca sahal ama fudayd ama wax aan la adkaynin. sidii ayayna noqotayoo waaba la heshiiyey. heshiiskaas oo muslimiinta uga dhignaa inay maka furteen mid ka xoog badan ama ka weyn ama uga faa'iido badan, oo qur-aanka uu heshiiskaasi ka cabiray inuu yahay furasho. ilaahay uu yidhi innaa fataxnaa laka fatxan mubiina. marka fatxigaasi ma aha fatxu maka, laakiin wuxuu tamhiid ama hordhac u ahaa in maka la furi doono iyo meelo badan oo dadka muslimiinta lagu dhibaateyn jiray. sababtoo ah waa markii ugu horreysay oo la aqoonsaday jiritaan muslimiin inay jiraan. intii hore waxaa laga soo qaadayay dad yar oo ay tahay in la baabi'iyo, fikirka ay wadaan islaamka ahna in la joojin karo ayaa loo maleynayay. laakiin markii la arkay inayn taas suurtagelaynin ayaa waxaa la go'aansaday in heshiis la kala qorto. heshiiskaas la kala qoranayay ayaa wuxuu ahaa ictiraaf laba dhinac oo iska soo horjeeda inay yihiin. marka meeshaan uga socon waxay tahay islaamku sida uu qadarinayo magaca wanaagsan ee ilmaha loo bixiyo, yani waana xaq ilmuhu ay leeyihiin. midda kale haddii magaca laga xumeeyo ilmaha, caruurta uu la ciyaari doono marka ay caruurtu ciyaarta jecel yihiin oo isu imaanayeen oo da'yarta ay yihiin 7 sano iyo 8 sano iyo 9 sano meelahaas oo ciyaarta aad u jecel yihiin, haddii magac xun ay hooyadii u bixisay ama aabihii u bixiyey, hadhow caruurtu ay ku caynayaan. wuxuu dareemaya marka cuqdad ah inuusan caruurtii ficiisa aha uuna la ciyaari karin oo magaciisa ama ay ku qoslayaan ama magac xun ay u bixinayaan. si marka taas looga fursado waalidku inuu asagoo qadarinaya nolosha ilmihiisa u jecel yahay inay noqoto nolol farxadeed, ficiisa ama qayrkiisana oo si sharaf leh uu kugu dhex jiro, magac qurux badan oo wanaagsan in loo bixiyo ubadka ayaa wanaagsan. waxaana ugu fadli badan oo in loo bixiyo ay tahay wax ku tusinaya wixii adduunkan laynoo keenay oo ah ilaahay inaan caabudno oo addoon ilaahay la noqdo. saasaa waxaa magacyada ugu fiican waxaa ka mid a wiilasha in loo bixiyo magac ilaahay loo idaafaynayo, sida cabdullaahi oo kale iyo asmaaullahi alxusnaaga 99 hadba midkii la raaciyo, cabdiraxmaan, sida maalan cabdishakuur, maalan waxyaabaha maa cubid yani iyo maa xumid wixii mahad ilaahay ku tusinayo, sida nabiga sal alla alay wasalam
يعني magaciisa oo tafaa'ul ah oo Maxamed loo bixiyo ama Axmed loo bixiyo aad iyo aad ayuu arrintaas muhiim u tahay marka ubadkeena farxad ha ku noolaadeene magac fiican aan u bixino waa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.